السلام عليكم كسودة وجان كدار وجان وطاطو سبتا سبسكرايب كان كفر فضلا xitaa dhulka aad cabirto oo dhulkayga dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashan jeclaan lahaa dad badan ay haysataa problemkan okay diiniyan ahaan maxaa laga qaban karaa I don't know wixii laga qaban kara diiniyan ahaan xadiidka Ubaadatu ibn Saamit oo Bukhari iyo Muslim ay soo saareen ayaa nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam man ahabba liqaa Allah ahabba Allah liqaa'ah wa man kariha liqaa Allah kariha Allah liqaa'ah ruuxi ilaahay la kulankiisa jeclaada allana isaga inuu la kulmo jeclaada ruuxi ilaahay la kulankiisa kahda ama dhibsado karahaystana allana inuu isaga la kulmo karahaysta Aisha radhiyallahu ta'ala waxay tiri rasuul ilaahayow inna lanakrahu al-maut waxay u qaadatay inay arrintu tahay geerido la naco dhamaantana waxay tiri geerida waa nacabna ima macnahaas laga wada markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laysa dak sida ma Aisha sal laga ma wado walakin al-mu'mina idha hadarahu al-maut bushira bi ridwanillahi wa karamatihi waxa laga wada ruuxa muuminka markii lagu soo xaadiro oo geeridu ku soo xaadirto intayna naftuba ka bixin baa waxa loogu bishaareynayaa ilaahay ridihiisa iyo karaameyntiisa ilaahay raali buu ka yahay waana lagu maamuusaya waa lagu wanaajinaya khayr baa ka horeeya qalbiga loo dajinaya falaysa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu markii saa loogu bishaareeyo wax la arko wuxuu ugu jecel yahay waxa ka horeeya oo maxay ah qabriga uu ku sii socdo qiyaamada ka sii dambaysa la kulanka alle jannadii ilaahay daawashadiisa waxba waxa uu ka sii horeeyo waxa ka horeeyo mar walba uu ugu jecel yahay laana waa loo bishaareeyay oo khayrka u soo socda aad u weyn wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam fa ahabba liqaa Allah markaasuu wuxuu jeclaanayaa ilaahay la kulankiisa allana wuxuu jeclaanayaa inuu la kulmo isaga